السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بهذا ورباهنتا قيبه هذا كلا دوان marka ugu horeysa aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinka mahad celinayaa sidaad u soo ogolaateen u soo ajiibteen martaqaadkii aan galabta halkan idinku infaad garaynay iyadoo ognahay inay tahay Ramadaan bisha khayrka badnayd oo la soomay yahay xaafado fogfog iyo meelo dhaadheerna loo afuro tagayo waa idinka mahad celinayna ana idin wacay waxaan idinku yeeray inaan maadaama aad tihiin mikrofoonka dadweynaha shacabka Soomaaliyeed inaad naga gaarsiisaan waad qaadaan fariimaha aan rabno inaan dadweynaha la wadaagno shacabku xaq waxay u leeyihiin in arrimaha dalkooda halkay marayaan madaxdoodu mar kasta iyo dawladooda ay uga waranto markaan statement ka dhameeyo su'aaluhuna way idin furnaan doonaan inkastoo ay tahay saacatul qanfuur oo baahi jirto waxay ku saabsan tahay shirkayga jarayda galabtu ururada aynu qaybta ka nahay caalamiga ama goboleed iyo baaqyadii ka soo baxay isdaba joog ah inaan halkan kaga jawaabno gaar ahaan kii ugu dambeeyay ee ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika kii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay iyo saaxiibadii waxaan xoogga saaraynaa kii Afrika dawladda federaalka Soomaaliya khamiistii 22 bishan waxay shacabka Soomaaliyeed la wadaagtay dareen ay ka qabtay natiijada shirkii golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee ka socday xarunta midowga Afrika shirka waxa shir gudoominayay dawladda Djibouti sidaan hore idinku sheegayna go'aamadii shirka ka soo baxay waxa ku jiray qaar ka hor imanaya madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobada badan marka laga tago saddex qodob baan isdul taagi doonaa shirkan qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa oo qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah ee Afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka sida alla wada socotaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12 Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweynaha laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob kale qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhameystiran ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dawladnimo dawladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aanu rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasuleynin difaaca dalkooda haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Afrika wuxuu muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya shirka waxa ka soo baxay in loo soo jeediyay ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya
ciidamada amisom inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh arrinkaasi koow waa sharci darro mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee amisom oo ku cad qaraarka golaha ammaanka Security Council-ka United Nations-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12 March 2021 Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waa hay'adda ugu sarreysa ee sharciyada dunida soo markaa kan Afrika wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee Security Council-ka oo aanu ayidsanahay wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha Soomaaliya ee mas'uuliyad kala wareegidda ciidamada amisom sida la wada socoteen ciidamada Soomaaliya labadii usbuuc ee soo dhaafay waxaa ku arkaysay inay mas'uuliyaddii kala wareegayaan amisom Somali Transitional Plan STCP oo soo baxay Febraayo 2021 duniduna og tahay dalkuna og yahay ra'iisul wasaaruhuna saxaxay ayay qorshahaasna ka hor imanay mar saddexaadka waxa ay gaf ku tahay sharafta qabka iyo haybadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed askariga Soomaaliyeedna ma aha askari waxa loo sheegi karo xitaa arrinkaas golaha nabadda iyo ammaanka Afrika uu soo jeediyay wuxuu taageero iyo hiil u noqonayaa culayskana ka qaadi karaa ururada argagixisada ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed habeen iyo maalin dagaalka kula jira yaa ka dambeeyay warqoraalkan waxa dadaal badan ku bixiyay labadii wadan ee aanu sii sheegnay Khamiistii waa Kenya iyo Djibouti Kenya lama yaabanin oo waa hore ayaanu culaaqaad kala qaadanay ninbaa waxa la yiri ninkii hebel baa ku caynayay wuxuu muxuu caayaa col baabanu nahay ina qoltiin haduu ka caayay isla Kenya lama yaabanin waxaanu isku haynana shacabka Soomaaliyeed way og yihiin oo waa kiiska badda oo ay leeyihiin ka tanaasula badiina annaguna aan leenahay ka tanaasulimayno waa u dhimanaynaa dhulka yaga mana yahayn runtii qaanuuniyan ama sharciyan ama common sense maskax ahaanba dal aanu sidaa isu haynaa oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo faaqidaadda arrimaha yaga dal aanu sidaa isu haynaa oo xidhiirkii kala goosannay oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo istaadmanada arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo waa nasiib darro runtii marka lama yaabanin iyaga wadaaf laakiin waxa la yaab kale waxa weeye dawladda Djibouti oo wali ku taagan jidkii aan uga dignay 4 bilood ka hor kursigan maanta doonayaan shacabka Soomaaliyeed u sheego kursigan maanta guddoonka golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ay ku fadhido Djibouti xubinimada iyo guddoonka waxa lahaa Soomaaliya laakiin waanu u daynay waxaanu dhimay walaaliheen ha fariisteen Djibouti waanu u daynay taasaan rabnaa leeyahay Soomaaliya xaq u lahayd way soo martay Djibouti Soomaaliyana wali ma qabo kursiga haddana kalsooni iyo walaalnimo aanu dhimay idinku sii wato markay taasi dhacdo markaa maxay ku xasuusinaysaa aniga waxay xasuustay shakhsiyan gabaygii dhowdaan ee garnaqsiga 1974 geedku koraayaba ninkan barigan talayay ilaa antay goynayaan gacalkay muday gacantii maroodiga ninkan galab ka sii daayay isna gows libaax igu ridaan gacalkay muday ninkan buurta guladeeda dheer anigu gaarsiiyey ee gunteeda igu celinayaan gacalkay muday halkaa u dhaafi maayo shacabka Soomaaliyeed baan u daynayaa sababta iyo jawaabta iyo su'aasha why maynaan ka yeelan dawlad Soomaaliyeed
in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaaliheen Jabuuti never ugu dambayn waxaan wadamada Afrika ugu baaqaynaa inay ka wada shaqeeyaan nabadda ammaanka iyo iskaashiga qaaradooda mushkiladoodana ay ku xaliyaan xeerarkooda iyo axdiyada wadagsan waxaanu si cad u sheegaynaa Soomaaliya inaanay kalsooni ku qabi doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay gudoominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn taas oo uu ogolaanayo qodobka 11 ee borotokoolka golaha nabadda iyo ammaanka waa kan laftiisa oo si cad u sheegaya inaan meel looga soo wada jeesto go'aanna laga qaato wixii waxyeelaya madax bannaanida dal Afrika markay sovereignty-ga madax bannaanida iyo qarannimada tagto axdiga ku qoran borotokoolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee ammaanka iyo nabaddu wuxuu sheegaya in meel looga soo wada jeesto si loo ilaaliyo madax bannaanida dalka in baarlamaanka lagu xadgudbo ciidanka lagu xadgudbo qarannimada lagu xadgudbo yeelina laakiin waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay in lagu taageeriyo dawladnimada Soomaaliya waxaan ayideynaa wadamadan saaxiibka nahay oo ugu horeeya dalka Mareykanku oo hiil iyo hoob la garab taagan dalka Soomaaliya waxaanu garab taagannahay qof kasta oo abaal noo galay waa garab taagannahay waana ognahay qof kasta oo gaf naga galayna waa ognahay shacabka Soomaaliyeedna waxaanu la hadlaynaa inay ogaadaan marxaladda dalku marayo iyo in xukuumaddu dadaal ugu jirto sidii loo hanan lahaa madax bannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya وأنا سوحة قيد كأهائم ولا هذا الذي يدرسون في دراسة كلامه أو الذي يقول الله هذا معناه هذا ما يقولون واحد كتنا زول يسأل هرتا wax walba waxa ka sareeya waxna waa soo jeedin waxna waa sharci waxa yaala sharci baarlamaan 12 Febraayo xeerka jahaynta doorashooyinka la yiraahdo wax ka sareeya oo la taaban karaana ma jiraan xukuumaduna waxay u hoggaansan tahay fulinta go'aamada sharciga ee ka soo baxa baarlamaanka laakiin saaxiibtinimada waa meesheeda iyo tala wadaaga iyo ismaqalka Soomaaliyana mar walba iyo dawladdu waxay diyaar u tahay saaxiibada iyo saaxiibadeena caalamkeena la shaqeyno si dhowna ula shaqeyno marka si hadlaysaan go'aanka golaha shacabka oo kale ma ogtihiin dalku laba hay'adood baarlamaan leeyahay ma soo qadara jeedaan golaha shacabka baarlamaanka ilaa dadku cadaysto go'aanada ay taageeraan caalamka oo dhan oo UN-ka Mareykanka midowga Yurub iyo midowga Afrika xagga ka aadaysan maadaama dunida dhan ay hadda si gaar ah isugu qabtaan runtii dalaadiro waxa fiican inaad malahay dastuurka akhrido dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labada gole way kala cad yihiin awoodoodu golaha shacabku wuxuu metelaa shacabka Soomaaliyeed soo doortay waa xeer dejinta xaq u leeyahay xeerarka dalka u dejiyaan waxaan ixtiraameynaa aqalka sare oo ah hubinta iyo check and balance-ga sida garsoorka baynu ixtiraamayno garsoorkuna halkan uu fadhiya oo lama oranin garsoorkaba u taga lama oranin xukuumadda u taga oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu u taga dalkeenu wuxuu leeyahay system isu dheelitiran dhammaan xeerarka waxay nooga mas'uulaan golaha shacabka waanaynu kula shaqeynayna waana ku khasbannahay go'aamada ay noo soo saaraan dawladaha Kenya iyo Djibouti hadii ay faragelinta ka diimayaan waddanka Soomaaliya maxaa kala qaadaysaa waxaan qaadaynaa talaabooyinka 100 talaabo horta ka horeeya tad adigu malahay rabto wataano waxa ka horeeya inaanu hadalno sidan oo kale consensus-keena muujino dawladaha iyo shacabku mar walba noo kala soocay shacabka Kenya iyo dawladda Kenya noo kala soocan shacabka Djibouti iyo madaxda Djibouti baa noo kala soocan waxa noo kala soocan dhammaan wadooyinka la qaadayo consensus-ka aan qabno waan muujinaynaa waxaan muujinaynaa arrintaasi nama qabato waana waa diblomaasiyaddu waa kun talaabo marka hadda tii koowaad baan joognaa waxay noo hadhay 999 talaabo oo kale maadaama Kenya iyo Djibouti ay ka mid yihiin midowga Afrika waxaad isqabsatay Kenya iyo Djibouti ma rabo midowga Afrika waxay la soo dhaxgalay midda kale haddii midowga Afrika waa arrintii la soo dhaxgalay maxaa ku ka dhaxweeyay shirka waa ka qeybgashaa midowga Afrika ka mid baynu nahay igad ka mid baynu nahay ururkan bayna ka mid ahay inaynu walaalaheenu deynay
ودي لا سocota soo maaha golahan nabadda iyo ammaanka Peace and Security Council of African Union kaas oo aynu xaq u lahayn inaynu ka mid noqono oo waliba shir gudoonkiisa noqono baynu deeyay kadib maxay nagu dhacay waxa aragteen baa ka soo baxay marka sug horta oo ku soo wada laakiin ma aha xeer waxa horta ka soo baxay ma aha xeer resolution ma aha waa statement waxa la yiraahdaa waa qoraalku waa ra'yi xeerka iyo resolutionka iyo ra'yigu intuba way kala duwan yihiin waxaan rajaynaynaa waa naga leh shirarka dambe ee peace and security-ga dalalka aanu siyaasadda isku hayno waa inaanay annaga noo gudoomin arrimaha lagaga hadlayo saas ay la tahay haye meesha caalamka iyo adaha dawladaha taageera Soomaaliya sidoo kale way kor yimaadeen ma waxa lagu laaban doonaa teendhada washiin samfega bulbul ma kii soo arooska soo duubay baa bari waa ka jawaabaya su'aal xumada aan ka gartay horta farmaajo looma kordhin waxa doorashadii hore ee dadbanayd ayaa shaqay weyday doorashadii dadbanayd markay shaqay weyday waxa la isla gartay oo golaha shacabku yiraahdeen doorashadii dadbaneed ee 17 September markay shaqay weyday aan aadno doorasho hal qof iyo hal cod ah tii laga soo laabtay July waxa la joogay 100 xisbi iyo doorasho hal qof iyo hal qof waxa loo tanaasulay maamul goboleedyada qaar dabeedna September 17 baa la tagay September 17 toddoba bilood kadib waa shaqay weyday finally hadda waxa golihii shacabku go'aansadeen hal lagu laabto back to basics waxa afka qalaad lagu yiraahdo back to basics waxa weeye markaad wada ka lunto ma sii soconaysaa mise halkii aad ka luntay waxaad aadaysaa halkii aad ka luntay labadii dariiq dabeedna kii saxda ahaad qaadaysaa marka extensionku ma jirin ee wuxuu ahaa doorashadii hore ee dadbanayd wadadii aanu marinay qalday way socon weyday waxaan aadaynaa doorasho dadweyne oo aad adigu codayn doonto bulbul insha Allah haddii nidaamka aad adkaystaan sharciga diida dalka doorashada go'aan ka saaray dalka maxaa rabshad gelin dalkeenu waa dal dimuqraadi ah wax walba waa adiga arkay hal qof xabsi kuma jiro hal qof lama maago hal qof wax laga sheego qofku xorriyad uu haystaa qofku markuu xanaaqa waa maxay markaan xorriyad haysan so we are the most democratic country in Africa marka dal sidaa u dimuqraadi ah xeerarkiisu cad yihiin oo systemkiisu cad yahay waa dalis in ilaahayna waa ka magan galaynaa wal ciyaadu billah in rabshada dhacdo sababtoo ah واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم ظلموا خاصة هذا فتنة دعضة قف ير يقف وين وعمي ميسا مركا ما دوني فتنة ما دوني رشد إن شاء الله إلهي نوكين معي final question هذا بوم هاتسنتين